wasiirkii hore arrimaha dibadda ee federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay sida uu arko wada hadallada ay yeesheen madaxweynaha qaranka Soomaaliya iyo dhigiisa Masar iyo inay ka wada hadlaan arinta biyo xireenka Itoobiya ee webiga Niil. madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Siisi ayaa abuuray hadal xoogan kadib markii uu shir jaraa'idi ay ku wada qabteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka sheegay inay isku aragti ka noqdeen halista biyo xireenkaas haddii loo maamulo qaab aan heshiis lagu wada ahayn. waxaan ka wada hadalnay xaaladda biyo xireenka dib u curashada Itoobiya, waxaana isku raacnay aragtida halista siyaasadaha halka dhinaca ee ku wajahan mashaariicda webiyada caalamiga ah. sidoo kale inay lama huraan tahay inaan ku dhaganaano mabaadi'da iskaashiga iyo wada tashiyada u dhaxeeya dalalka webiga uu maro si loo xaqiijiyo inaan waxyeello loo geysan midkoodna, ayuu yiri madaxweyne Siisi. wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inaysan wax dhibaato lahayn in Soomaaliya iyo Masar ay ka wada hadlaan arrimo uu ka mid yahay webiga Niil. waa caadi in wax dal dhibaya oo walwal ku haya ay dal kale ay saaxiib yihiin kala hadlaan. sida aan wada ogsoonahay biyo xireenka korontada dhaliya ee Itoobiya samaysay waxaa dareen badan iyo diidmo ka muujiyay dalalka Masar iyo Suudaan oo ku dooday inay tallaabadaas waxyeelaynayso maadaama ay yihiin dalalka biyahaas ku dhacayaan oo aan ahayn kuwa webiyada ka yimaadaan, ayuu yiri. waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya aysan ku qaldanayn haddii ay Masar kala hadasho arrimaha quseeya webigaasi, isaga oo sheegay in masaarida alaab kasta oo u garaacayaan sidii ay Itoobiya ugala heshiin lahaayeen arrinta biyo xireenka, balse waxa ugu wanaagsan in ay tahay in labada dhinac si siman looga wada dab qaato. dowladda Soomaaliya ayaa caddaysay mowqifka ay ka taagan tahay khilaafka webiga Niil ee u dhaxeeya labada dhinac. ujeedka dowladda Soomaaliya waa in si nabad ah looga wada faa'iideysto webiga iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga iyo heshiisyada caalamiga, ayuu yiri. sidoo kale afhayeenka madaxtooyada Cabdikariin Cali Kaar